بسم الله الرحمن الرحيم وعن مركل داوديال كسو دواada wararka Universal oo si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idin aqriyi doonaa anigoo ah Nuur Maxamed Cali aan idin dulmar qaar kamid ah wararka aad daawan doontaan Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho kadib markii uu isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya wasiirro iyo wasiirro ku xigeenka ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa iscasilay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay 3 sano kadib markii Soomaaliya laga cirib tiray cudurka dabaysha akhbaaradka caalamka idinkaga haynana waxa kamid ah hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay in aanay shaqo tagin maalinta Isniinta qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan goordhow u diyaar garooba وعن مركل داوديال aan ku bilaabay waxa garoonka diyaaradaha ee aadan Cabdulle Cismaan aadan Cadde ee magaalada Muqdisho soo caga dhigatay diyaarad siday Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab diyaaradaasi waxa ay ka soo qaaday magaalada Xudur ee gobolka Bakool halka oo uu barqanimadii maanta iska soo dhiibay diyaaradda ayaa waxa la saarnaa wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya taliye sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin matalayay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ammaanka garoonka diyaaradaha ee aadan Cadde ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana ammaanka Abu Mansuur la wareegay ciidamada gaarka ah ee nabad sugidda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Robo ayaa sanadkii 2013 gooni uga baxay ururka Al-Shabaab kadib markii ay isqabteen hogaamiyihii hore ee kooxdaasi Axmed Godane waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyay uu gabaadsanayay deegaankii uu ku dhashay ee Abaal oo ka tirsan gobolka Bakool halka oo ay ugu dambeyntii isku farasaareen kooxda Al-Shabaab garabka kale ee uu hogaaminayo hogaamiyaha cusub ee Al-Shabaab ay doorteen Sheekh Mukhtaar Robo ayaa Al-Shabaab xilal kala duwan ka soo qabtay inta aan loo magacaabin gudoomiye ku xigeenka ururkaasi waxaana uu muddo ahaa afayeenkii Al-Shabaab dawladda Mareykanka ayaa bishii Juun ee sanadkii 2012 ku dartay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur liiska dadka la doondoonaya oo ay ugu magac dartay liiska argagixisada waxayna wadaadkan madaxiisa dul dhigtay dawladda Mareykanka lacag gaaraysa ilaa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah wixii xilligaasi ka dambeeyay Al-Shabaab waxay culays xoogan saareen sidii wadaadkaasi ay ku qaarajin lahaayeen waxayna arrinkaasi ay ku qasabtay in Shabaab iyo ciidamadii uu hogaaminayay Mukhtaar Robo Abu Mansuur ay isku farasaaraan deegaanka Abaal ee gobolka Bakool halkaana oo ugu dambeyntii ay ku qasabtay in uu isu soo dhiibo dawladda Soomaaliya Mukhtaar Robo ayaa haatan laga soo dejiyay magaalada Muqdisho waxa uu caawa ku hoyanaya magaalada Muqdisho oo muddo kadib waxa uu sidoo kale dawladda Soomaaliya ma aysan shaacin in Mukhtaar Robo uu iyaga isu soo dhiibay wadaadkana kama uusan hadlin in Al-Shabaab uu ka baxay wixii warar ee arrimahaasi ka soo kordhana waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo markana dhinacaas iyo aynu aadno gobolka Shabeellaha Dhexe wasiirro iyo wasiirro ku xigeenna aad u fara badan ayaa mar qura waxay ku dhawaaqeen in ay iska casileen xukuumadda uu hogaamiyo Cali Cabdullaahi Cosoble madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona mooshin madaxweynahaasi ka dhan ah ay baarlamaanka ay u gudbi xubno ka tirsan baarlamaanka ay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle waxa iscilaada wasiiradaasi inooga soo waramay Ismaaciil Cabdulle Sabriye oo joohar ku sugan wasiirro iyo wasiir ku xigeenka ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle oo tiradoodu ay gaarayso 12 wasiir ayaa maanta iska casilay xilkoodii wasiirnimo kadib markii maalmihii u dambeeyay magaalada Jowhar ay ka jireen xiisado siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle haddaba waa kuwaana qaar ka mid ah wasiirada iscasilay oo ka hadlaya sababta ay isku casileen waxa Allah subhanahu wa ta'ala mahadiisa ee tahay meeshii aan ku dhisnay Hirshabeelle dugsiga hoose dhexe buray dhexdiisa inaan maanta mas'uuliyadii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta isku casilo
adduunyada waxa weeye bini aadanka anigu madaxweyne cali cabdullaahi cosoble qori naguma qabsan codkeenu ku yimid codkeenu ku baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa Iila Siyaar Sheekh Khaliif waxaan ahaa wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan cadeynayaa laga bilaabo saacada tan hadduu ilaahay yiraahdo nafti dambe oo gaarto in aan ahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo aanan haynin wax xil wasiirnimo sababaha aan isu casilay ayaan rabaa inaan faahfaahinteeda raaciyo waxaan rabnay inaan aadno shirka Seychelles waxaan dabacnay inaan tala ka qaadano aniga iyo waxa aadayna wasiirka maaliyadda waa haleeli weyn waan ka nimid ayadoo bariyo kala London la aadahayo 8 May baan nimid noo suuroobi weyday haddana gurigiisa baan tagnay waana diiday inuu qaabilo dadka wadana ka dhageysanayo hadii ahaan lahaayeen beesha caalamka martabad kasto ay yihiin waxaan maanta u cadeynayaa inuu magacayga la yiraahdo Cabdi Qaadir Caddo ahna wasiir ku-xigeenka boostada isgaarsiinta inaan iska casilay xilkii aanu hay Hirshabelle sababtuna waxay tahay muddo 10 bilood ayaan magacaabanahay inaan hoos u dhigin Hirshabelle mooye magaca xitaa Hirshabelle loo yaqaan oo si kale loogu dhawaaqo mooye aanan ka faa'iidin xilka aan qabanay ee ah wasiirada sidaa darteed waxaan reer Hirshabelle u sheegayaa Hirshabelle hal sano oo lugooyo ah ka badan ma u dul qaadan karto magacayga waa Maxamed Sheekh Axmed Farscade wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan halkaan ka cadeynayaa anigoo ah wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabelle inaan maanta iska casilay wasiir ku-xigeennimadii ahay wasiir ku-xigeenka haweenkii xuquuqul insaanka waxyaalaha maanta aan isku casilayo waxa way madaxweynihii oo shaqadii wasaaradii nala wadila wuxuu ka dhigtay magaalo madaxdii Hirshabelle Muqdisho ka dhigtay casilaadeennu annagu golay baarlamaankana waa ku dhaaranay kii golaha wasiirada waa ku dhaaranay bacdama golay wasiirada aan ku dambawnay dambi dhaaf inaan helno asal u ah waxaan leeyahay iscasilaadani waa cibaado sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta gudbiyay mooshin ka dhan ah madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble waxaana mooshinka ka qabtay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise sidoo kale wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabelle ayaa madaxtooyada Hirshabelle kula hadlay warbaahinta maamulka Hirshabelle oo ka qabo shaqaaqadii iyo foodladii maanta ka dhacday magaalada Jowhar ilaa hadda anaga waxaan ognahay oo wasiir oo iscazilay ma jiraan waxa la wasiir sidiisu markuu iscazilay nidaam iyo waxa jirta qawaaniin la mariyay oo dekreto lagu soo saaray ma ahan in shir jira lagu magacaabay marka ilaa hadda ma hayno xukuumadda wax soo gaaray oo waraaqad oo wasiir iscazilay oo yiri xilkan iska cazilay Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar haddaba iyadoo wasiiradaasi faraha badan ay iscasileen ayaa wariyaheena Maxamed Xaaji Cagmadhige uu wareystay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdullaahi Maxamed Caddo Cagmadhige ayaa wasiirka weydiiyay maxay tahay sababta tiro inta la eg oo wasiiro ah ay mar qura isu wada casileen wasiirkan waxa uu ku jawaabay Bismillahirrahmanirrahim markore waxaan salaamayaa telefishinka Universal oo runtii howl adag u hayo wadanka Soomaaliyeed geeska gees ilaa iyo dal iyo dibadda marka labaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay gaar ahaan waxaan salaamayaa dowlad goboleedka Hirshabelle haddaan u soo laabto Mr. Cagmadhige wariyihii baaliga ahaa oo in muddo aan iska dambeysay waxaan ku leeyahay maanta anigoo wasiirkii boostada isgaarsiinta ahaa oo muddo 5 bilood ah dowlad goboleedka Hirshabelle ay dhisan tahay ilaa iyo hadda 10 bilood noo dhimantay sanad guuridii 2 bilood waxaan aragnay ama aan arkay ama wasiirada iscazilay ama kuwa hadda isqaranayay intaba ay tahay in aan wax shaqo ah aanan qaban systemkan abuurmay oo hadda Hirshabelle ka amuuray junti fara badan baa la soo geliyay oo siyaasadeed muddo 5 sanadood ugu dambeysay ayaa la rabay dowladda goboleedkan Hirshabelle in la isku daro Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe si loo helo dowlad tayo leh dowlad wanaag si loo helo dowlad midnimo ah ka shaqeysa dib u heshiisiinta beelaha dega labadan gobol waxyaabahaas isku keeninteeda oo dhan maadaama dowlad goboleedkan uu ahaa dowlad goboleedkii ugu dambeeyay oo curdunka ahaa dowladii mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu guuleystay in la dhiso markii ugu dambeysay oo aan u dhaaranay dalkan anigoo xildhibaano ah kadibna aan u gudbiyay heer wasiir ah marka hore waa kaga mahadcelinayaa mudane madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble inuu ii igmaday inaan noqdo wasiirkii boostada isgaarsiinta haddaba taas markay dhacday waxaan aragnay in dowlad goboleedkii Hirshabelle ay u guurtay xamar binaadan marka walaalow 10 bilood waxaan qaban waynay 3 sano ilo soo socoto maadaama dowladdan ay mandatekeedu uu yahay 4 years waxaan aragnay inay 8 bilood oo khasaare ah
aan la kul marka maadaama aan ummadii aan u daaranay aan xilkii noola igmaday aan gudo wayna sababo badan aawgood ha noqoto madaxweynaha oo halkaan xaruntii loogu talagalay inuu ku shaqeeyo ka tegey ha noqdo gudoomiye baarlamaanka oo asigana naftirkiisii xamar ku sugan wixii ka dhacay ramadaankiina la ogaa iyo heshiiskii meeshii aan la tagnay Soomaaliya waxa weeye nidaamkan iyo dimuqraadiyadda aan qaadanay Soomaali badan maanta waxay isleeyihiin wardadkani waa cusub yihiin maxay wax u duminayeen mar haddii aad iscasisheen idinkoo wasiirro ah oo xildhibaano ah soo looma fasiran karo inaad damacsan tihiin inaad dowladda dhisan madaxweynaha iyo baarlamaanka gudoomiyihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka aad ka hor timaadaan arrintaas maxaad uga jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa dowlad goboleedkan Hirshabelle dowladdii dhaxana xiriir fiican lama leh international community ama donors-kiina xiriir fiican lama leh waxaa la rabay in shaqadu laga bilaabo hoos waxaa la rabay shaqo oo inclusive golo wasiir waxa lagu yaqaanaa inay khamiis walba fariistaan ajendooyin keenaan ka doodaan kadib markay u ansixiyaan loo gudbiyo golihii baarlamaanka kadib ansixiyaan lagu soo celiyo madaxweyne si ay u noqoto wax sharci ah waxaasoo dhan isku soo wada duub dowladdii waxay noqotay hal qof dowladdii waxay noqotay madaxweyne keliya dowladdii waxay noqotay madaxweyne ku-xigeen inuu madaxweynihii noqdo dowladdii waxay noqotay wasiiradii inuu asiga noqdo dowladdii waxay noqotay ilaa iyo agaasimagoodi inuu asiga noqdo dowladdii xukuumaddaani kuwa hadda ku jiro oo hadda weli isleeyahay dowladdaani xukuumad wasiir baa tahay ilaahayna waa ogyahay annagana waa ognahay ummadda Soomaaliyeed weli gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle shacabkiisa dhan waa ogyahay mudane Cagma Dhigow waagaag marka la fiiriyo xildhibaanada baarlamaanka dhexe ee Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed ay ku jahawareereen mooshinno inay keenaan joogto ah taasoo dhibaato ku noqotay horumarka dalka haddaad tihiin Hirshabelle xildhibaanadiinu haddaad qaabkaas ama tubtaas aad martaan soo dhibaato uma aha shacabka guud ahaan gaar ahaan kuwa Hirshabelle waa ku mahadsan tahay aniga hadaan isku faaninaynin muddo 3 wiig ka hor gudoomiyaha baarlamaanka markuu joogay Nairobi madaxweynahana uu joogay Hiiraan ayaan waxaa isla garanay anigu xamar joogno xildhibaanada oo labada garab ah inaan isu keenno gobol aan ku dhigano Cabdilcaziz degmada Cabdilcaziz oo aan dhahno warshadaani dan maaha aan ka wada shaqeyno midnimada iyo horumarka aan ka daayno madaxda sarsare mooshinno iyo waxa aan ogaano baarlamaanka awooddiisa aan ogaano inaan nahay oversight-kii dowladda inay fiirisay ee tahay haddii qaldan tahay aan ku saxno systemka markaas annagu aan haysano laakiin haddiiba systemkii aan lagu ogolay inaad ku shaqaysid kadib ayadoo aan rabin taa isu keenno ayaa haddana waxaa dhacday inuu madaxweynihii waxyaabo badan oo dikreetooyin badan soo wada magacaabay meeshii marka waxaa ka dhacay ummadda Soomaaliyeed oo wada sensitive dhaqanka Soomaalida aan leenahay waxa weeye adduunka dadka ugu caqliga iyo aqoon iyo wax walba haddaan nahay ugu karti badan aan nahay laakiin waxaan ku xunnahay isma dhegaysano haddii aan kaa dhex galo reer Jowhar iyo reer Beledweyne waxaa lagu tilmaami jiray dad ilbaxnimada ku horeeya aqoontooduna ay sarreyso qabiilna aan ku dhaqmin ilbaxnimada iyada adinkoo ka faa'iideysanaya maxaad si kale wax ugu furdaamin weyseen maxaa dhacay waxaan u malaynayaa Cagma Dhigow de kulli hadda raadiga Universal adduunka laga dhageysanayo anigu magaaladan Jowhar aan ku dhashay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle beesha uu ka soo jeedaa waxaan u malaynayaa taa inay maanta u noqon doonto ummadda Soomaaliyeed inay indhaha ku fiiriyaan inuusan qabyaalad wax ku keenaynin in ummadda Soomaaliyeed aad u baahan tahay wabiga Shabeelle uu maro badda ogeedo quruxda badneed inkastoo in muddaha aad ka maqan tahay geedihii cambihii soo dhici jiray waagii barisamaadkii xasuusta adigoo 1987 inaad Jowhar timid anoo markaas ahaa maareey ku-xigeenka waaxda beeraha ah taariikhda uu Jowhar leeyahay iyo Hiiraan cid loogu sheekeynayo ma laha Hiiraan markii maalintii Soomaaliya ee xornimada loo dooriyay 1954 daaqilgidii waatuu Cabdullaahi Ciise ka soo galay waxay ahayd gobol diversity ah Soomaaliya qabiilada wada dega ah dadkii cadaawo la dhax dhigay oo dana gaara la kala leeyahay ummadii un baa la kala qaybinayaa laakiin nin walba madaxa waxaan u soo jeedinayaa in danta guud marka laga wada fiiriyo ama xildhibaan noqdo ama wasiir wardanaha guud markii la fiiriyo ayaa midaha gaarka la helaya ugu dambaystii xildhibaanadiina Hirshabelle waxa wararku sheegayaan ilaa iyo dhowr iyo 60 inaad tihiin ee ragga isu diyaariyay inay mooshin keenaan oo madaxweynaha ay markaa ka hor jeestaan arrinta maxaad ka leedahay ugu dambaystii Cagma Dhigow waxaan ka leeyahay horseedaba anigu waxaan ku adkeynay waad aragteen galmudug 50+1 ayuu Cabdikariin Xaaji Guuleed ku baxay anigu nidaamka hadda noo degan iyo dastuurka hadda noo degan waan samayn karnay inaan 50+1 aan cod gelin aan keenno
taa macnaheedu waxa weeye madaxweynaha kale oo hadda imaan doono oo musharaxiinta dambe oo imaan doonto ayaa haddana caqabad kale ku noqonaysaa madaxweynaha wuxuu ku dhacayaa 66 waxaana qabaa kalsooni inaa inta badan aan heli doono hadduu alla yidhaah وتهيأ عد كاسينا وحوها وزيرك بوسطة يسجارسين دولة قبلات كهرشبيلة عبد الله محمد عدو وحو ورمي وريهنا محمد حاجة عقم دقي سجون وجور بحني وجد كأي مرقرة سوء عزلين وزير هذا وقفرها بدن دولة قبلات كهرشبيلة وته مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي مقالة مقدسة وحوجا قيب قلي مناسبة لجوما موسى 6 سنة كدب مركي صوماليا لقى عربتري عذر كذبيشة waxaa munaasabadaasi inooga qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyay wariyahayaga maxamed cabdinaasir ayaan le munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynaya ciribtirka 3 sano kadib cudurka dabeesha oo laga waayay Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay ciribtirka cudurka dabeesha oo uu sheegay inuu dhibaato badan uu ku hayay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed cudurka dabeesha wuxuu dalkeena ka jiray muddo dheer wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyay caruur fara badan oo Soomaaliyeed in laga waayo dalkeena waxa keenay dagaal wada jir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah kaasoo soo bilowday sanadihii 80-yadii runtii waa guul noo soo wada hoyatay maanta sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay la shaqeeyaan dadka ka shaqeeya talaalka oo la tacaalaya ciribtirka cudurrada kala duwan ee saameynta ku haya carruurta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo guud ahaan waalidiinta Soomaaliyeed inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan shaqaalaha caafimaadka ee ku howlan talaaladan daraasado caafimaad oo dalka laga sameeyay ayaa sheegaya in caruur badan oo Soomaaliyeed ay geeriyoodaan inta da'dooda aysan gaarin 5 sano ka hor sababtuna waxa weeye cudurro laga hortagi karo ayaa ku dhaca waxa waajib nagu ah marka anagoo idil inaan ka hortagno cudurradaas oo dabeeshu ay ugu horeyso oo daacuunku ku jiro iyo shuban biyoodka iyo waxa la wixii infection disease ah dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka go'an inay joogtayso dadaalada lagu ciribtirayo loogana hortagayo cudurrada dilaaga ah oo ay dabeeshu ka mid tahay sida ku cad qorshaheeda horumarinta dalka aan u istaagno kulligeen sidii aan u xaqiijin lahayn inaan mar kale cudurkan uusan ku soo laaban Soomaaliya dalkeenu ku soo laaban annagoo dhanna qof kasta oo Soomaaliyeed inuu xoojiyo dadaalada aan ugu hortagayno cudurkan oo kale oo dilaaga inuu dalka ku soo noqon Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa waxaa guddi loo saaray khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoonka sare ee golaha wakiilada Soomaaliland guddigaasi loo saaray waxaa warbixintan inooga soo diyaariyay oo Hargeysa inooga soo diray Mukhtaar Ismaaciil jirjiraydu si wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi Cali Yuusuf Axmed ayaa waxay sheegeen in muddo 7 fasax la geliyay golaha wakiilada Soomaaliland muddadaasina lagu xalin doono khilaafka ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada lana saaray guddi ka kooban labada dhinac ee khilaafkaasi u dhaxeeyo إعلام ما نحن ما أنت كله ينو فريسنا سعاديونا أدو ويدنا ويد فصحي كلها شو قدوم مركب ولا تشري حبنيه لوضع لنعبة مركي أنا يعني كان قادش شفت الصول يسنى وحن نسلكر إن شو قدون هان إن كلها
ilaa axadda dambe uu fasax galo wixii muranadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobada cashe ee golahu fasaxa yahay. horta golahu waa hal golo weeyaan, isqabsi iyo ra'yi lagu kala duwan yahayna waa wax caadi ah oo adduunkooda uu ka dhacaa. halkanna maanta un kow maaha, hore waa u dhici jirtay, laakiin nasiib wanaag qalbi wanaagsan bay labada dhinacbay la yimaadeen oo ah in muslax la qaato. kolkaa waxaa la isla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan, toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala gadisnaa. insha allahu saasayna ku dhammaan doontaa. xildhibaan cabdiraxmaan talyalle oo isagu sheegay inuu guddoomiyaha rasmiga golaha wakiilada somalilan yahay ayaa isagu sheegay inuu soo dhoweynayo guddigaasi la saaray. waxaanu sidoo kale ka hadlay go-aan ay maxkamadda sare ee somalilan ka gaadhay dacwad uu u gudbiyey taasi oo ku salaysnayd khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada. codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu helnay. xaqiiqdiina waxa weeye maxkamaddu waxay tidhi khilaafka dhexdiina idinku dhexdiina ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada. intaasi markay nagu soo noqotay annagu bidixdaba bele kumaanu ogin, dib baa naloo ku soo celiyey. dib haddii naloo ku soo celiyeyna kadib markaanu is aragnay maanta xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo, laba guddina la magacaabo, guddi waliba ay 5 tahay, 10kaa xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan. mukhtaar ismaaciil cali, telefishinka universal, hargeysa. kulan looga hadlayay dhamaystirka dastuurka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay. Sakariye Maxamuud Timacada ayaa warbixinta warkaasi inoo haya. maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka ayaa maanta la kulmay wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka, waxaana shirkan ujeedadiisa uu ahaa hanaanka arrimaha dastuurka ee u dhaxeeya wasaaradda dastuurka iyo maamulka gobolka Banaadir. inta badan waxaa la isweydaarsaday aragtiyo kala duwan oo ahaa ujeedada shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka. Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dadka Muqdisho ay doonayaan xaqi ay lahaayeen iyagoo u marayo wada saxan. laakiin haddana waxaa mas'uuliyad ah in qof walba maanta uu joogo aragtidiisa uu dhiibanayo, mas'uulna uu ka yahay qof walba degmada uu matalo, la xisaabtanka dawligana qofka uu sugayo midka dadkana uu sugayo, oo macnaheedu ay tahay aragtidiisa saliimka ee ku aadan maanta halkan wada tashigan inuu ka dhiibto. waxaana rajaynayaa inaan maanta kaliya ku ekaan laakiin sii socod doonto arrinka qof walba uu sugaya oo ah sida wasiirka uu sheegay xukuumaddan oo magaceeda ku salaysan nabad iyo nolol. markastoo la soo qaadayo nabad iyo nolol waxaa aasaas u ah cadaalad in la helo. sidaa darteed magaalada Muqdisho waxay doonaysaa, dadkeedana doonayaan in cadaaladii ama xaqii ay lahayd ay hesho oo ay ku lahayd nidaamka federaalka, xaqii ay ku lahayd in ay hesho iyadoo u marayso dariiqa ugu wanaagsan ee dawladnimo. Cabdiraxmaan Xoos Jabriil wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay dhowr qodob oo ka mid ahaa diyaarinta dib u eegista dastuurka in la dhameeyay oo goor dhow la horgeyn doona baarlamaanka Soomaaliya. hadda marka waxaa noo suurta gashay inaan tegi karno oo aan tagnayba garow aan tagnay, waxaan tagnay Baydhabo, Kismaayo, Cadaado, Jowhar aan u soconaa hadda. marka maadaama waxaas la ku eedeynaya hadda waxaan go'aansanay si dastuurka uu u helaa ogolaasho ama lahaansho dadka u yeeshaan inaan wada tashiga badino, kana mid uu ka mid yahay. mana noqonayo kii ugu dambeeyay aan gobolka la yeelano, waan wada doonaa. marka 3 qayb ayaan ka dhigi doonaa dib u eegista dastuurka. mid waa qodobadan la soo sameeyey inaan ka dooranaa luqaday ku dhigan tahay oo aan hadhowdii
isbeddel lagu sameeyaa dastuurka meelaha mugdiga ku jira lagu sameeya waa mid qaybta labaad oo garab soconaya waxay noqonaysaa arrintii hadda guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenka maluuka ay ka shanqariyeen oo ahaa federationka la dhammaystiraayo ma dhammaystirna hadda waa in laga galaa heshiis dhab in laga gala waa waxyaalaha oo runta laysku haysto oona aan waxyaalaha calaamada u ah inuu federation jiro in kale zakariya maxamuud timacade universal t v muqdisho wasiirro ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa dhagax dhigay dhismo ay yeelanayso jaamacadda alnajaax ee magaalada burco dhismahaasi waxaa loo qaabaynayaa qaab casri ah waxaa warbixintaasi burco inooga soo diray cali daahir maxamed boos wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee somalilan iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa dhagax dhigay dhismaha jaamacadda u gaarka barashada culuumta shareecada islaamka iyo luuqadda carabiga al-najaax ee magaalada burco oo noqonaya dhismo aad loo casriyeeyey kaasoo loo dhisay hanaanka jaamacadaha ku yaala dalalka ka horumaray cilmiga iyo dhaqaalaha munaasabad kooban oo loo qabtay dhagax dhiggaasi ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro culimaauddiin ganacsato abwaano madaxda shirkadda dhismaha ee najax construction company qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee somalilan iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa ka hadlay goobta dhagax dhigga guddoomiyaha jaamacadda al-najaax doctor faysal maxamed cali oo ku baaqay in ummadda islaamku ay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda islaamiga al-najaax sidoo kale waxaa ka hadlay madasha culimaauddiin ka socday magaalooyinka burco iyo laascaanood cuqaal salaadiin ganacsato abwaano mas-uuliyiin ka socday shirkadda dhismaha ee najax iyo shirkadda isgaadhsiinta ee telesom guddoomiyaha ururka kaalmee kuwan cabdimaalig muuse coldoon ayaa goobta dhagaxdhigga ku guddoonsiiyey maamulka jaamacadda najaax $1,200 Maraykanka xafladeennu walaalayaal waxay ku saabsan tahay in maanta uu bilaabmayo dhismihii jaamacatu annajaax jaamacaddaasoo ku taalla gobolka togdheer magaalo madaxdiisa burco ee muddo 2 sannadood iyo dheeraadna furayd dhismahan sida boorkaba ka muuqato walaalayaal wuxuu ka kooban yahay dhismayaal kala duwan waxaa ka mida 3 dhismo oo waaweyn oo dhismayaasha halkaa iska xiga ah aan ugu talagalnay in 10 sannadood oo soo socda insha allahu tacaala arday kastoo jaamacatu najaax ay qaadato ama kuwa gobolka jooga ha noqdaan ama kuwa meel kale ka yimaadayba ha noqdaane meeshii ay wax ku dhigan lahaayeen jaamacaddu waxay imika haysaa arday 400 gaadhaya maadaama ay jaamacaddu si degdeg ay u korayso waxaana waxa weeye rajaynaysaa sanadkan 150 ilaa 200 oo arday inay soo galaan waxa isaguna jira dhismo kale oo kuwa la mida oo loogu talagalay maamulka jaamacadda waxaan u dhisayn garaynay sida jaamacadaha caalamiga waxaa ka mid ah hoygii macallimiinta maadaama jaamacadda iminkana ay wax ka dhigaan macallimiin ajnabi ah masaajidkii baytullaahigii baa ka mida oo masaajidka dhexda ku yaalla aadka u quruxda badan waxaa ka mida hoolkii lagu shireeyey ummadda muslimiinta ah ee soomaalida ah waxaan u soo jeedinaynaa baaq ah jaamacadda maanta dhismaheedii uu ka bilaabmay oo waxa weeye wax ku filan aan loo haynin inay ka qayb qaataan mashruucan ballaadhan ee intan leeg yaa inoo dhisaya ma kuweyt baa inaga caawisay maya intaa midna maaha mahad gaara maanta halkan waxaan uga soo jeedinayaa shirkadda haas $150,000 ayay markaa kaga qayb qaateen waxay la tahay jaamacatu najaax way najaxday waxaan leeyahay geeska afrika oo dhan baa jaamacaddan ka faa'iidaysan doonta waxaan ku warqaatay jaamacaddu inay tahay jaamacadda keliya ee dadka macallimiinta ka yihiin daraasaad culya dadka soo baxay oo waxa wadaan wax dadka oo dhan wada anfacaya ilaahay ha idinku guleeyo jaamacadda ha layswada barbar taago dhismaheeda waxaa dhici doonta jaamacaddoo dhammaatay oo inteenna joogta kii waliba leeyahay anna waxbaan ku lahaa maantay kala quban tahay buug baa la qorayaa wixii wax bixiyaba wada sawiraya dowlad hoose ahaan waxaannu maanta ku wareejinaa jaamacadda najaax dhul dhan 100 baloodh ka dowlad hoosaan waxaannu ballan qaadaynaa waddadaa soo gasha jaamacadda najaax ee imika la dhisayo inaannu si degdega ushaayaga waddooyinka inaannu qayb weyn ka qaadan doono waxaanaan rajaynayaa insha allahu jaamacaddani in ay inoo hirgasho waana hirgelaysaa jaamacaddan ilaahay inoo suurtogeliyey
waxay timi wakhti aynu u baahnayn oo dhammaanba dadka af soomaaliga ku hadla ay muhiim u tahay wax ka barashadeeda iyo wax ku bixinteeda labadaba najaax iyo najax oo isgalay labaduba najaxayaan insha allah ayaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala jaamacaddana tii lagu naalooda ee ummaddu ay u hiratuna allaha ka yeelo cali daahir maxamed boos TV-ga Universal